nuxurka xogkeediyaha ganacsiga Soomaaliyeed oo aan wasaarad ahaan muddo 3 sano ah 3 sano ugu dambeysay oo aan ugu mahadcelinayna kaalinta howlwadeenadii ka soo shaqeeyay portalkan muhiimka u ah horumarka ganacsiga dalkeena iyo kubaca dhaqaalaha qulqulka badeecadaha dalka xogkeediyaha ganacsiga Soomaaliyeed ama Somali Trade Information Portal waa mareeg loogu talagalay in lagu keydiyo dhammaan macluumaadka la xiriira ganacsiga Soomaaliya dhoofka iyo soo dejinta shabakada macluumaadka ganacsiga Soomaaliyeed waxaa laga filayaa inay horumariso saadaalinta iyo daahfurnaanta ganacsiga iyo jawiga guud ee ganacsiga dalka boggan waxa uu martigelin doonaa nidaamyo ganacsi oo hadda jira iyo kuwa mustaqbalka oo ka mid yihiin sharciyada habraacyada foomamka shatiyada khidmadooyinka ay bixiyaan ganacsatada adeega loogu sameeyo iyadoo loo marayo hab hay'adaha sharciyeynta heer federaal iyo heer dawlad goboleed muhiimadda loo hirgelinta xogkeediyaha ganacsiga Soomaaliya waa fududeynta ganacsiga iyo in la helaa ganacsi daahfuran kaasoo ganacsatada u fududeynayo sidii ay ku heli lahaayeen shuruucda habraacyada foomamka ay u baahan yihiin xogkeediyaha ganacsiga waxa uu qayb ka yahay barnaamijkan dib u habeynta ganacsiga Soomaaliyeed isagoo u gogol xaaraya ka mid noqoshada hay'adaha ganacsiga adduunka iyo kuwa gobolka faa'iidada uu leeyahay xogkeediyaha ganacsiga wuxuu u ogolaanayaa ganacsatada inay helaan dhammaan dokumentiyada looga baahan yahay inay dhoofiyaan ama ula soo degaan badeecadooyinkooda ayagoo uusan luminin waqti ama dhaqaale midna waana isku xiraha ganacsatada iyo hay'adaha dawladda bixiya adeegyada la xiriira ganacsiga xogkeediyahan wuxuu gacan ballaaran ka geysanayaa maalgashayaasha gudaha iyo maalgashayaasha dibadda una sahlaya xogkeediyahan shuruucda iyo habraacyadii ay bixiyeen hay'adaha kala duwan ee dawladda taasoo oo gacan ka geysanaysa kubaca ku yimaada maalgashiga dalka iyo abuuridda fursad shaqo anigoo ka faa'iideysanaya fursadan waxaan rabaa inaan idinla wadaago in wasaaraddu ay hirgelisay hanaan u sahlaya ganacsatada ay ku helaan diiwaangelinta shatiyada ganacsiga ayagoo joogo goobahooda gudaha iyo dibadda si online ah kaasoo fududeynaya bixinta adeegyada loogu qabanayo ganacsatada sidoo kale waxayna dhaqan gelisay sharcigii shirkadaha iyo xeer nidaamyihii oo qayb ka qaadanaya abuuridda noocyada shirkadaha kala duwan ugu dambeyn waxaan maxad ballaaran u celinayaa bangiga adduunka gaar ahaan groupka ama kooxda IFC oo naga taageertay taabagelinta mashruucan sidoo kale waxaan mahad ballaaran u celinayaa saraakiishii ka qayb qaatay wasaaradda ganacsiga ee wasaaradaha kale iyo mas'uuliin iska xil saaray fulinta mashruucan iyo dhammaan hay'adaha dawladda kaalinta weyn ay ka qaateen in ay nala wadaagaan xogaha la xiriira ganacsiga runtii barnaamijkan faahfaahintiisa iyo qaabku yahay waa ka doontiin haddii la yiraahdo soo presentation ah kooxda wasaaradda ganacsiga technicalka ayaa runtii noo soo jeedin doona soo dhawaada ku soo dhawaada mashruucan Soomaali maanta dan u ah inay ka faa'iideysato kaliya wasaaradda ganacsiga oo mas'uuliyadii iyo waxay haysaa in ma ahana wuxuu ka dhaxeeyaa dhammaan hay'adaha ee quseeya
runtii kayada badan ayaa naga qayb qaatay sida wasaaradda maaliyadda wasaaradda dhowr ah naga qaatay insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan looga shaqayn doono kaliya hadda waalkii aan diyaarsanay shuruucdii inta badan waa lagu shubay waxaan rabnaa hay'adaha dawladda waxaan ka rabnaa inay wixii ka dhiman waa live documents ka soconayo waaye shuruuc kastoo noo soo kororto hay'ad form kastoo soo kordho intaba tuulkan diyaar ayuu u yahay in lagu shubo wabillahi tawfiiq wa mahadsantiin